بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان ما تحق بلاوانا دولة أما برنانا creating classes and methods. Java everything وحكو سيلكسين هاي class وأوب design أو محوها قابك سولية هاي مركا دمان وحوالبا أو Java أسميني سيد أما إيشاك wax walba sameynaysid waa inaad ku samaysaa inside a class main method ayaa xiisadaha hadda lasoo dhaafo dhan wada isticmaalayna main method kaas laftigiisa wuxuu ku dhex yaalaa oo macnaha wuxuu dhex yaalaa inside a class everything oo resource-yada kale ama waxyaabaha kale dhan haddaad rabto inaad isticmaashid oo programkaada waxyaabahaas oo dhan fiijirada aad ku darsato dhammaantood waxuu isticmaalaya as a class marka حسابنا وحنا يقصل اسمعنا قيمها أو كوبين هاي كلاس محوي هاي قاب كل لو أبورا أما لو استعماله instance variable كان أو instance سجن محلها وأركينا أبورتان كإيو استعمال كميثود main method كأهرول استعمالين application هذا ماشي يالان أم استعمال كيسة sida loo abuuro methodyada loo yaqaan overloaded iyo constructor qaabka loo sameeyo lixdan insha Allah buu ku arkeena main method waayahan dambe isticmaalayna project-geena kana main method uu leeyahay main method kaas wuxuu dhex yaalaa class magaciisa la lahayo IT05 bata marka class kan everything oo Java isticmaalaysid waxa loo yaqaan waa class kan oo aad u muhiimsan marka xisadana maanta waxa ka hadlay class maxaa lahaa sidoo kale qaybaha uu ka kooban yahay class iyo mid walba sida loo isticmaalo waxaan u baahanahay notepad class محل لها class wax kala maahan waa naqshad oo yeelanayo object everything maadaama aan dhahnay maxaa everything Java waa class-ka wuxuu leeyahay object-yada waxay noqon karaan everything waxyaabo badan oo noqon karaan object-gaas blueprint-giisa ayaa waxa la lahaa class naqshadda oo object yeelanayo ayaa waxa la lahaa class tusaale ahaan haddii oo ishay guri aan rabno inaan dhisno waxaan u baahannahay naqshad soo ma engineer naqshadeed kadib ayaa fundi ama shaqaalihii kala dhisi lahaa loo baahanaa ayadoo naqshad la haynin fundi wuxuu dhisa mare soo ma okay halka naqshad waxaa suurtagal ah in laga sameeyo guryo fara badan oo naqshadaas kaliya la isticmaalo hadda for example Daarusalaam oo kale Daarusalaam waa wan naqshad soo ma filooyinka gaagaabka hal naqshad ay leeyihiin kuwaan dabaqyada naqshada ay kala leeyihiin okay halkaas naqshad ayaa wax walba laga sameeyay okay object waxaa leenahay waa tusaale guriga ka soo qaad gurigaas naqshadiisa wuxuu noqonaa class wuxuu yeelanaa intaas object ayuu yeelan karaa haddaad oo aad u isticmaasho marka class waxaa leenahay qeexitaankiisa caadiga ah waxa waaye waa blueprint of an object naqshadiisa ayaa class loo lahaa objectina wuxuu noqon karaa wax walba dad waa ka dhigi kartaa waxaan muxuu ahaay naf lahayn oo sida reexaantii waxyaabaha sida hadda guri aad tilmaamo kale uu noqon karaa everything ayaa waxa noqon karo object noqon karo haddaan rabno inaan sameyno class haddaan rabno inaan sameyno waxaan u baahannahay keliya ereygan class oo keyword waaye keywordyada oo hore aan soo aragnay chapter 2 ayuu ka tirsan yahay class
kadib waxaa xijinaysaa magaca laalaad u baxsan kartaa ayaa samaysanaysaa kadib qoyskaan fure qoyskaa xire waxa ku dhex jiro waxaa loo yaqaanaa body of the class isaga ayaan kala qaybin doonaa oo inta waxaan soo sheegnay part of a class qaybahay yihiin kalaasyada qaybaha ka kooban yahay inta qayb ayaan sheegi doonaa okay notepad-kan waxaan u baahanahay marka waxaan leenahay class magacii ayaan sameynaynaa of that class aan dhahno person kadibna qoys ayaan furaynaa qoyska kalena intuu ku xirmaa waxaan u baahannahay waa intaan magaca markaa bixinaysid waxaa fiican ereyga koowaad kaliya leh inuu capital noqdo inta kalena small yihiin haddii ay muxuu ahaa laba magac oo kale ay noqdaan ayadana waxaa fiican xarafka ugu horeeyo oo magaca kale ku darsamaayo xarafka ugu horeeyo in oo capital noqdo ayaa isigana fiican laakiinse in aad capitalka wada dhigto waa laga fiican yahay sida hadda annaga aan sameyn oo kale diidi maayo oo qaadanaa laakiinse waa laga fiican yahay xarafka ugu horeeyo inuu capital ku noqdo inta kalena small ay noqdaan okay intaan kadib intaan waa inta oo aasaaska ah ama fundamentalka ugu baahan tahay waa sidoo kale classka sida hadda u jeedid inta wuxuu wataa publican chapter waxa ku arki doonaa hadda waa leedmo chapter 6 midkan chapterka ku xigo ay ku arki doonaa ay faa'iido leeyahay waa optional waa ku dari kartaa waana ka tagi kartaa waxa loo yaqaanaa modifier loo yaqaanaa waa public protect friendly waxyaabo noocaas waa friend iyo wax adii la shan modifier jirto mid kamid ah ayaa siin doontaa chapter 6 marka la tago ayaa arki doontaa faa'iidooyinka waxa kale qaybtan inta dambe isagana waxa lagu dari karaa extends waa lagu dari karaa waxaa sheegaysaa classka oo dhaxlaayo waxa haddaad rabtid classkan class kale oo dhaxle macnaha classkan wuxuu isticmaali doonaa class kale sifooyinka iyo qisaasiyaadku leeyahay ayuu isticmaali doonaa markaas waxa lagu daraa ereygan keywordkan ah extend kadibna waxaa sheegaya xusee classka magaciisa ayaa sheegay waa arki doonaa hadda kan u baahnin for example another class samay waxaa dhahdaa class student extends person class person kadib ayaa qoysaska sameynaysaa kadibna waa xidhay okay waa two class waxaa ogaataa classka magaciisu waa kan keyword waaye kan kale haddana waa keyword wuxuu tilmaamaa inuu dhaxlaayo person this class ayuu tilmaamaa inuu midkaan dhaxlaayo okay waxaad u baahan tahay marka waxyaabihii la dhexli lahaa sifooyinka midkaan extend qayb markaa meeshaan soo gaarno ayaa sharxeynaa kan hadda hoos naga mari midkaan every class modifierka waa optional waana ku dari kartaa every class wuxuu leeyahay dhowr partiga koowaad waxaa loo yaqaanaa fields partiga labaad waxaa loo yaqaanaa methods partiga saddexaad waxaa loo yaqaanaa constructors every class waa inuu ka koobnaadaa saddexdaas qayb qaarkood waa optional qaarkoodna dhammaan horta haddaad ka tagto ama haddaad isticmaasho horta labadan shay waa muhiim inuu oo yeesho labadan shay waa in laga helaa field waa in laga helaa method every class midkaan haddaad ka tagto compilerka wuxuu sameynaa mid empty ah isagaa maskaxdiisa ka sameynayo
oo ma ka muuqanayo laakiin Java JVM-ka wuxuu sameynaa mid empty ah hadda midkaan ka tagto okay farqiga u dhaxeeya iyo waxyaabaha loo kala isticmaalo filiyada waxay noqonayaan person qasaa'isiyaadkiisa person sifooyinka ama property-ga oo leeyahay person objectigaas oo person ah for example person aan dhahnay class ee hadda for example jaamacadan oo kale waxay la macaamishaa dad soo ma arday ha ahaado macallin ha ahaado ama shaqaale ha ahaado waa un dad sax every person wuxuu leeyahay magac wuxuu leeyahay ID jaamacad marka la joogo wuxuu leeyahay sifooyin iyo qasaasiyaad aan lala wadaagin soo ma telefoon uu leeyahay waxyaabo adi macluumaad fara badan uu leeyahay macluumaadkaas faraha badan waxaa loo yaqaanaa properties waxaana muhiim ah inay ku xaroodaan wax loo yaqaan filiyada laba qayb ayaa loo sameeyaa laba qayb waaye mid waxaa loo yaqaanaa inuu noqdo waxaa laga rabaa instance sign oo haya jeclaha instant variable midka kalena waxaa loo yaqaanaa class variable filiyada labadaas ayaa loo qaybinaa methodka isagana sidoo kale waxaa loo qaybinaa instance method iyo class method okay maxaa farqi u dhaxeeyo labadaas labadooda horta waa fili ay isleeyihiin instance variable ha ahaado ama class variable labadooda waxay isleeyihiin filiyadana sida hore u sheegay waxaa lagu xareeyaa macluumaadka objectiga la rabo in la xareeyo for example hadda guri marka la dhisaayo naqshadaa la sameeyo soo ma naqshadaas waxay caddeynaysay qaabku u dhisan yahay gurigaas oo idin inta mitir loo baahan yahay balac qolalka inta mitir loo baahan yahay ilbaabka inta loogu baahan yahay dhir cabir wax walba oo dhammaystiran macluumaadkaas ah ayuu hayay person class waa haddaan isticmaalayna isigana waxaan xareynaynaa macluumaadka oo leeyahay qof shakhsi ah ma la fahma macluumaadka oo shakhsiga ah laga xarey lahaa sifooyinka ama qasaasiyaadka for example waxaan dhahnay magac every person wuxuu leeyahay magac soo ma magacaas ma la leeyahay ma la wadaagaa mise isigoo gaar u ah macnaha midka oo isku ekaanshaha ma ka hadlaayo magacaas hadda haddii aan dhaho for example arday magaciisa aan sheego ma la wadaagaa waa maya xataa haddii laba isku ekaato hebel aan leeyahay soo ma waa tilmaama waa magac shakhsiyaa leh objectyaa leh waxaan leenahay noocaas waxa waaye waa instance okay telephone every person telephone oo wataa soo ma number oo wataa numberkaas ma la leeyahay waa maya waa maxaa waxaan leenahay waa class property waaye object property waaye object property marka propertyadaas oo dhan waxaan leenahay waa instance variable okay wax ay dhammaan dadka jaamacadda joogo ay ka sameyn yihiin ma jiraan oo dad dhan ka soo qaad macallin ha ahaado ii sheeg arday ha ahaado shaqaale waxay ka sameyn yihiin ma jiraan hadda classkan person aan maraynaa shay ay ka sameyn yihiin totally ma jiraan ya waxay ka sameyn yihiin xarunta magaca jaamacadda dhammaan inta hadda meesha joogto shaqaale ama muxuu ahay waxay ka wada sameeyeen hal shay oo macluumaad u ah oo lagu sifeyn karo dhammaantood waa maxay magaca jaamacadda soo ma jaamacadda waxaa la leeyahay waa bahda modern
soma waxa noocaas oo kala ah oo dhammaan qof sheega karin oo inta dhammaan ay ka wada wadaagaan ayaa waxa loo isticmaalaa class variable ma fahmina class kan waa person aan dhahan person kan waxa dhammaan objectyada dhan ay same ka wada noqon doonaan maxaa leenahay waa class variable filiyada laba loo qaybiyaa inuu noqdo instant variable ama noqdo class variable local variable waa soo aragnay chapter 2 waa ku soo aragnay local variable waa maxay local variable waxa loo isticmaalaa waxa blockooda yar yahay for example method dhexdiis variable lagu xuso ayaa waxa la lahaa local variable okay marka la rabo in la sameeyo local variable hore u soo aragnay maxaa horumarinaynaa data type-ka kadib magaciisa siinayna kadib caadi u isticmaalayna soo ma instance variable wuxuu la mid yahay local variable wuxuu kaga duwan yahay bas wuxuu kaga duwan yahay location-ka oo fadhiyo farqiga u dhaxeeya instance variable iyo local variable marka haday noqoto sameys ama wax walba ay noqoto waa same farqiga u dhaxeeya difference-ga labadood u dhaxeeya waxa waaye scope meesha fadhiyo midkan waa instance variable aan leenahay dhammaan class-kan aan isticmaalayo wax gudaha ugu jiro method-kan dhexdiisa hadaa lagu xuso ama haddii banaanka lagu xuso ama constructor dhammaan instance variable waa la isticmaalaa laakiinse method-ka dhexdiisa variable-ka lagu xuso oo local variable oo noqonaa method-kaas dhexdiisa laga arkaa inta kale waa ka xadidan yahay farqiga u dhaxeeya labadooda waa intaas class variable iyo instance ama local isaga wuxuu kaga duwan yahay class variable marka la abuuraayo waa in laga hormariyaa keyword-ka loo yaqaan static example yaraa ka bixinaa instance variable markaan abuuraayo waxaan leeyahay data type aan xusaa for example integer space aan leeyahay magaca waxaan leenahay id dheh ama waxaa dhahdaa name wuxuu noqonaa car data type-ka ama string java maadaama string isticmaalayo string oo data type-kiisa yahay magaca waxaa la lahaa name semicolon midkaan name marka la dhaho qiimo toos lama siiyo halka local variable markaad abuuraysid aad qiimo toos u sii kartid mal fahma midkaan markaad abuuraysid qiimo toos ma siinaysid marka la rabo in qiimo la siiyo ama waxa ku jiro loola soo baxa la rabo waxaa la isticmaalaa methodkan instance method aa isticmaale si aad kan qiimo ku siisid ama aad ula soo baxdo okay waxaan leenahay data type-ka xuseen magaciisa semicolon class variable markaa rabtid inaad sameyso isiga waxaa leedahay dabcan jaamacadda magaceeda ka wada dhexeyso oo waxaa ah family okay waxaan leenahay for example family group inaan dhahnaa rabnaa oo isheeg modern inaan gelino okay waxaan leenahay meeshaan class variable maadaama uu yahay static keyword ayaan ka hormarinaynaa intii instance variable lagu sameynayo ama local variable data type string ka dhig magaca waxaad ka dhigaysaa family group kadibna semicolon okay maadaama oo hal qiimo haysanayo waxaa awoodnaa inaan siino qiimo toos siino sababtoo ah modern misbedelayo adi markaa ku diiwaangelinayo haddaa modern geliyo oo adi markaa ku diiwaangelinayo modern geliyo ani marka la diiwaangelinayo macallin ahaan modern geliyo farqi noo soo saara marka hal qiimo toos ah la iska siiyaa waxaa la isticmaalaa marka saas oo kale qiimo toos siinaysid keyword-ka final inaad geliso kadibna qiimo toos ah siiso tan kale oo idinku baraarujinayo waxa waaye capital in laga dhigo ayaa aad u fiican maadaama static iyo final yahay capital laga dhigo dhammaan
okay qiimahana oo aan meesha ku siino waxaan leenahay modern university okay qiimo oo default ahaa siinay magacaas isma bedeli doono magacaas isbedeli doono wuxuuna ka dhaxeeyaa every object oo la sameyn doono class kan person markaan sameynayo for example adaa ku diiwaan gelina magacaadi waxaad dhan qora iyo macluumaadka aan u baahanahay inaan ka qoro modern university inaan mar walba diiwaan geliyo ma baahni waxa ku diiwaansana class variable waxa ay sameeysaa class variable wuxuu ka dhaxeeyaa every object la sameeyo object waxaan noqon doono adiga object aan noqon doontaa oo shakhsi ah ani oo shakhsi ah object aan noqonaa adi marka object oo waxa wada noqonayna of class person okay example ahaan id in name iyo waxaas aan u qaadanay iyo telephone iyo wax la mid ah instance variable iyo class variable waxay kala yihiin waa la fahmaa soo ma qaabka loo sameeyana midkan waa local variable qaabka aad u sameey lahayd u sameeyna farqiga kaliya u dhaxeeya labadooda muxuu noqonaa location scope bas oo noqonaa class variable marka la sameynayo waa inuu wataa keywordka static haddaad rabtid inaad qiimo default siiso maadaama qiimo default oo wato waxaa la isticmaalaa final ma fahmina okay waxaa soo haray methodyada waa inuu noqdaa instance method ama class method instance method waxaa loo method guud ahaan waxaa loo isticmaalaa sifooyinka oo classka leeyahay oo aan ku soo koobnay fields in qiimo lagu siiyo ama lagala soo baxo waxaan rabaa saddex object oo class person inaan sameeyo aniga oo macallin ah adigoo arday ah iyo qof kale oo shaqaale caadi ah xafiisyada iyo fadhiiso saddexdaas ay sameeysan dabcan saddex kala duwan aan ahay saddexdeenaan magaca marka la rabo in la diiwaan geliyo oo by code dabcan marka hore ingiriisiyahay ayaa la diiwaan gelinaa okay marka rabo in la diiwaan geliyo magacaan oo qiimo la siiyo waa inaan u maraa method instance method waa inaan u maraa oo aanan dhihin name qiimahaasi maxamuud cabdiweli oo macallin ah name qiimahaasi ma dhigi kari waa inaan u maraa instance method okay objectiga oo aniga aan leeyahay markaan rabo inaan magacayga soo daabaco waa inaan u maraa methodka instance method okay see qiimo ku siinaynaa see ula soo baxaynaa waxaa la sameeyaa wax loo yaqaan setters iyo getters method every class marka la sameynaa inta badan waxaa lala sameeyaa method oo ah qiimo lagu gelinayo iyo method oo ah qiimo lagula soo baxayo waxaa loo yaqaanaa setters and getters method loo yaqaanaa waa laba method okay example ahaan markaan sameynayo maxaan u baahanahay waxaad u baahan tahay data type inaad sameyso methodka ayaan rabaa inaan abuuro method inaan abuuraan rabaa waxaan sameynaa data type aa xusaa data typeyada jiro ayaan xusaa okay marka aan rabo inaan wax geliyo waxaa loo yaqaanaa setterada return type inta badan looma yeelo setterada return type looma yeelo oo hadafkooda maaha in return type loo yeelo return type inuusan yeelan waxaa naga saacidaayo inaan isticmaalno void data type-ka oo void inaan isticmaalno kadib aan dhahno set name qoyska labadan qoys in argument aan u baasgareeno waa in aan argument u baasgareeno waxaan leenahay dabcan magac ayaa la diiwaan gelinaya waxaan leeyahay string waxaan u baasgareynaa waxa liga diiwaan gelin lahaa name qoysaan furaa waan xiraa
isla qoyska. Okay, waa setters ayaa loo baahan yahay, sidoo kalena waxaa loo baahan yahay getters. Getters. Okay, method oo setters ah kan waa kaliya inaan muxuu ahay waxa u dhigay oo sharaxaad kaliya ka bixiyo. Okay, labadan ayaa u baahanahay. kanna waxaa loo bixiyaa get ayaa loo bixiyaa. Get name uma baahnid wax argument ah, ilaan magac meesha ku jiro ayay soo bixi dhahday. waxa kaliya lagu siinaa return. Okay, marka getters waa inuu yeeshaa return type. waxa la soo celinayo waa maxay? waa name-ka inaa helaa rabaa. type-kiisu muxuu yahay? waa string. marka waa inaa helaa data type oo ah string. waxaan leeyahay waa inuu yeeshaa return type. Okay, markuu noocan yahay oo getters yahay methodka oo return type leeyahay, waa inaan celiyaa wixii oo celin lahaa. waxaa leeyahay return keyword-kana isticmaalaa. waxaa celisaa name. this dot name. Okay, this keyword-kana isticmaalay. this keyword, this wuxuu macno leeyahay class-ka. waa object of class-ka hadda lagu dhex jiro. class-ka hadda ku dhex jirno waa maxay? waa person. marka waxaan dhahnay this class-kan waxaa ka wadnaa class-kan variable-kiisa ah name. dabcan class-yo kale ama waxyaabo kale lagu soo baasgaray karaa jiro, sida hadda midkaan oo kale. midkaan name-kan variable-kan iyo name-kan variable-ka waa kala duwan yihiin. labadooda markaa rabtid inaad tilmaamto kan waxaa inta badan isticmaale this ay isticmaale this dot name oo u dhiganta class-kan filiyadiisa name-ka ah isoo baasgaray. Okay, sub name-ka waxaad u baahan tahay qiimaha la soo geli doono, la soo baasgaray doono meel lagu shubo soo ma. Okay, waa inaan ku shubanaa name-ka oo variable-ka oo noo samaysan oo instance variable-ka loo yaqaan inaan ku shubano. Okay, haddaan rabno inaan tilmaamno name-kan waxaan leenahay this dot name-ka inuu la mid noqdo name-ka. Okay, labadan name maxaa ku kala duwaa? keyword-kan this. keyword-kan this wuxuu taagan yahay class-kan hadda joogno filligiisa ama instance variable-kiisa name la dhahaayo oo kan ah in lagu shubo qiimaha wax la soo baasgaray doono method-ka. ilaan waxaan dhahnay haddaad rabno haddaad rabtid every class variable-diisa inaad qiimo siisid instance variable-kiisa waa inaad u martaa method. methodyada waxay leeyihiin instance method iyo class method. method kasta labadooda wuxuu leeyahay class method-ka ma lahan. instance variable-ka wuxuu leeyahay waxa loo yaqaan setters iyo getters. Okay, marka midkaan qiimaha ku siinaynaa, kanna haddaan rabno inaan qiimaha aragno oo filligaas ah ama sifadaas oo objectgaas leeyahay markaan rabno inaan aragno ayaan isticmaalaynaa. waxaa soo haray methodka cashirkiisa aad u tiro badan yahay. intaana hadda ku simaynaa, laakiinse xisada soo socota ayaa dhammaystiri doonaa qaybtaan ah method. constructor-ka isiga wuxuu yeelanaa constructor-ka wuxuu qaataa, wuxuu la mid yahay method-kan, wuxuu kaga duwan yahay isiga wax data type ah oo return type ah ma lahan. halka midkan uu leeyahay data type oo return type ah. ma la fahma? ma lahan. sidoo kale wuxuu kaga duwan yahay magaca class-ka ayuu qaataa. marka la abuuraayona waxaa lagu abuuraa marka la abuuraayo class name-ka oo sida uu qoran yahay ah oo wax laga bedelo bida capitalka wax walba
kadibna qoyska furan iyo meesha uu ka xirmi lahaa waa constructor. hadda constructor-kan waxa loo yaqaanaa waa empty constructor. okay, haddaan u baahannahay haddii rabno marmarka qaar setterskan intaa wici lahayn haddana cutters wici lahayn waxaa noo roon in marmarka qaar aan qiimo meeshaan setter ku sii lahayn inaan constructor-ka ku siino oo aan name-ka qiimihiisi waxoo dhan inta siino oo u baasgareysano meesha oo argument u sameeyno marmarka qaar waa dhacdaa waan la isticmaalaa. sidaa darteed haddaadan sameynin constructor empty hoose aan oo kale ah waxaa hore u sheegnay java jvm-ka oo compiler-ka ah wuxuu ku sameynaa constructor qaabkaana empty ah ayuu sameynaa inkasta oo ka muuji doonin koodkaada ka muuqan doonin. mar allaala rangareynaysid constructor-kaas empty-ga ah isaga ayaa samaysanaya. okay, casharkan usoo laabano intaa sharaxaadda ugu muhiimsan ahayd buug isagana aan aragno. haddaad rabtid inaad samaysid define class waxay u baahan tahay example-kan oo ah class waa keyword-ka magaciisa qoyska furta kadib default ahaan by default class-ka wuxuu dhaxlaa wax loo yaqaan object class. class kasta midkaa samayn doontid ama midka samaysan oo java ee hore usii samaysay oo ka tirsan jdk-ga dhammaantood waxay wada dhaxlaan object class. super class oo calaasyadoo dhan waaye object class-ka. sidaad ujeedid hadda calaaskaana samaysanay extendis ma sameyn extend anaga ma dhihin ogow object class saanu ku dhaxlay jvm-ka si toos java all ii sheeg waxa ah classes oo java ah dhammaantood waxay wada dhaxlayaan object class. for example hadda midkaa markaan rabo haddaan rabo inaan isticmaalo waxaan leeyahay this dot this wuxuu u taagan yahay horaa u sheegnay object of this class dot dheh okay, keyword-ka this expect this dot. okay, marka aad variable ama wax samayso ama shay samayso dot markaa dhahdid waxaad isticmaalaysaa waxa loo yaqaan okay, for example hadda waxay yaraa samaysanaynaa hal variable ama hal instance ayaa samaysanaynaa waxaan dhahno string name waxaa loo yaqaanaa hadda midkaan aan sameynay name-ka waxaa loo yaqaanaa instance variable sababtoo ah calaaska gudihiisa bas loo ku jiraa locationkiisa wax kale kuma duuna. okay, name dot aan dhahay meeshaan okay waxaan oo dhan ayuu wataa waxaan qaarkoodna wuxuu ka dhaxlay objectiga calaaska la hayo string qaarka kalena wuxuu ka dhaxlay calaaska la hayo objects ayuu ka dhaxlay. ya bratina mavi keyword-ka super class markaa rabti inaad u samaysid calaaska waxaa u baahan tahay inaad isticmaasho keyword-ka loo yaqaan extendis oo u baahan tahay object class-ka laakiinse uma baahna inaad extend dhahdo already isiga si toos u dhaxlay. qaabkee u sameynaa class variable ama instance variable. si aad og tahay chapter 2 markaa rabtid instance variable haddaad rabtid inaad samaysid chapter 2 laabo java macnaha local variable qaabka local variable loo sameynayo ayaa loo sameeyaa instance variable waa la mid. instance variable waa la declare gareeyaa waan la define gareeyaa
hab isku mid ah sida local variable qaabka u samayn jirta ayaa u sameynaya maxay ku kala duwan yihiin the main difference is waxa waaye the location waa locationka ay classkaas ka fadhiyaan meeshaas lagu xusaayo ayuu ku kala duwan yihiin halka variablada oo instance variable-ka haddii lagu declare gareeyo instance variable haddii aad ku declare garaysid meel ka baxsan method aadan raacinna modifierkan ama keywordka loo yaqaan static haddii meel method ka baxsan aad ku xusto muxuu ahaay instance variable aadan raacin keywordka loo yaqaan static waxaa loo yaqaanaa instance variable maxaa lahaa waa waxa waaye waa variable lagu declare gareeyay outside method isla markaasna aanan wadan keywordka static instance variable malfama qaxitaankiisa waxa waaye waa variables are considered variablada waxaa loo yaqaanaa instance variable goormee loo yaqaanaa waa haddii outside method lagu xuso haddana aysan wadanna static keyword okay static keyword marka lagu xuso haddii method banaankiisa lagu xuso oo la raacay static keyword muxuu noqonaa class variable oo noqonaa okay example waa kan method meel ka baxsan ayaa afartan variable lagu xusay waxaa loo yaqaanaa instance variable waay class variable maaha sababtoo ah method meel ka baxsanaa lagu xusay waxana ma wataan keywordka loo yaqaan static example ahaan waa kuwaan isagaa ku sharxayo variabladaas class variable wuxuu kaga duwan yahay kuwii hore wuxuu kaga duwan yahay waxaa loo isticmaalaa class variable aguud waxay ku fiican yihiin for sharing informationka la rabo inay wadaagaan between different objective kala duwan informationka ka dhaxeeyo inay wadaagaan ay tahay oo wada isticmaalaan kaas ayaa waxaa loo isticmaalaa isheeg class variable okay marka la rabo in la abuuro waxaa laga horumarinaa keywordka loo yaqaan static example ahaan waa kan haddaad qiimo aadan siinin oo macnaha qiimo hadhow timar dambe inaad rabto inaad siiso waxaa isticmaalaa static data type-ka magaca oo aad u qortay capital ereyada dhammaan capital ay noqonayaan semicolon okay qiimo default haddaad rabto inaad siiso for example sida hadda anaga sameyno kala ah jaamacadda magaceeda dhammaan waa wada qaataan uun baahninayaa mar walba qorno hal magaca siin maxaa loo baahan yahay markaad magac siinayso default final ay u baahan tahay farqiga maxaa final loo isticmaalay midkaana loo isticmaalay waxa waaye finalka waxaa loo isticmaalay si loo siiyo qiimo joogto ah sida loo siiyo halka midkan kalena qiimo ma wato uma baahnid final okay intaasa ku simeynaa methodka inta aan ka hadalnay iyo overload iyo override iyo waxyaabahaas oo dhan xisada soo socota insha Allah ka dhiganaynaa qaybtaan ah create method insha Allah muxuu ahaa waqtigeena meeshaan oo nooga haray salaadana naga tagay insha Allah inta ku simeynaa wax su'aal ah inta hadda sheeg